cabdiraxmaan warsame waxaa lagugu soo eedeeyey qodobada 434 uu ugu weyn yahay oo dilka ah dil in Caaisha dilkeedii ka qayb qaadato dishay kufsi marxumadda loo geystay qodobkaasna waa lagugu soo eedeeyey sidoo kale afduub laakiin waxaas dhan waxaa isku ururiyey qodobka dilka dembiga ma gashay mise ma gelin ha ma laga rabaa yes waa gashay Yes. dembiga waa gashay Si dadban baan u galay waana ku dhamaystirayaa. suga qof hadli kara ma jiro waxaad gudub samaysa oo waxayna ka ballan wax ka bedeshaa banaanka la geenay maxkamaddu ixtiraamkeedu waa ixtiraam gaar ah cabdifataax waa maqlaysaan mamiir qabtaa Aad iyo aad. maskaxdaadu ma Tamaam way. tamam boqolkiiba boqol soo ma Aad iyo wuxuu qirtay dembiga inuu galay waa maqlayseen dhammaan shacabka soo maqleen aamus hadalku waxaan kaa rabnaa markaa faahfaahin baan rabaa inaan waxaan kaa rab ya wa istaag adigu istaag mana fadhiisanaysa istaag amar maxkamadood ma fadhiisan karti waxaan rabnaa inuu cabdifataax naga siiyo su-aashaan kuudinaya waxda cabdifataax maadaama ilaahay uu fududeeyey baa dembiga aqratay iyo wixii ummadda soomaaliyeed iyo muslimiinta meel ay joogaanba muddo tiro badan geliyey dhibaatooyin iyo hawl iyo mucjizo ay noqotay gabar yar dilkeed jarjarideed kufsigeed dembi intaa laakiin la galo maxkamadda horteeda maanta a ka qiratay waxaan kaa rabaa sida dembigaas aa u gashay cidda kula gashay waxa sababay iyo meesha ku gasheen fursaddaas haystaa ummadda u sharax maxkamadda u sharax waa mahadsan tahay garsoorayaasha xafiiska xeer ilaalinta qareennada shacabka iyo ciidamada amniga salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu su-aal baa idi weydiisay mudana guddoomiye si degan oo aan ka fiirsaday baana kaaga jawaabay eedeymo badan baa aniga la ii soo jeediyey maa hal eedeyn xafiiska eerlaalinta wuxuu ii soo jeediyey anigu kufsi baan galay xafiisku xeerlaalinta wuxuu ii soo jeediyey kufsi wuxuu ii soo jeediyey dil wuxuu ii soo jeediyey afduub wuxuu ii soo jeediyey khalkhalgelin amni soo sidaa ma ahayna xareen okay anigu kufsi baan galay mudana guddoomiye sharaxaad ka bixi kufsiga ay saa u gashay iyo cidda kula gashay wax dil oo aan galayna ma jirto waa ku maqalay kufsi baa gashay Okay. yaa kufsatay caaisha caaisha kufsatay soos subxaanallah noo sharaxaad naga sii su-aale ii weydii kufsigu noocuu ahaa yaa kala qayb qaatay maxaa shaydaan baa kollay sabab u ahay maxaa khasbay waxa inaad geysatid anigu waxaa weeyaan kufsigaasi waxaa iga dhaadhiciyey igu qanciyey inaan galo goobjoogna ka ahaado cabdishakuur maxamed dige cabdishakuur maxamed dige subax buu dhacay gurigiisuuna ka dhacay 2 saac subaxnimo ilaa 2 saac bar caaisha ma soo afduubteen caaisha isagaa afduubay isagaa gurigiisa geeyey anigu waa uu soo wacay keliya guriga lagu afduubayana cabdishakuur maxamed dige guriga ayaa degan waxaa degan isaga iyo hooyadiis aduu mala degan may see ku ogaatay inuu cabdishakuur soo afduubay caaisha oo uga qayb qaatay dadan ogey aniga isagaa ii yeeray yidhi waan kuu baahanahay darisna waa ahayn iska soo horjeeda su-aal jawaab aan ka dhiganaa ninkan hadalkiisa waa maqlaysaan sidee kugu yahay telefoon miya mise isagoo lagu leeyahay isagoo dhulka xaalan tahay ku nakaan waan is aragnay anoo gurigayga hortaagan waan ku rabaa buu yidhi imo anoo gurigayga hortaagan waan labistay waan baxay gurigiisaan ugu tegay oo qol irid banaan oo aniga iga soo horjeedaa waxaan u tegey isagoo qolka ku haysta caaisha waana xaqiiq waxa aan ka hadlayo anigu cid i khasabtay cid waxaa weeyaan ii hanjabtay cid isasabtay inaan xaqiiqada ka hadlo midna ma jirto waxaan ka hadlaya unse qabaa waa xaqiiq ilaahay nagu waxaa weeyaan waxaan rabaa inay maxkamaddu sidaa ii fahanto cabdishakuur isaga
isagaa ii yeeray gurigiisaanan ugu tegey dabadeed waxaan u tegey isagoo qolkiisa irid bannaankaa ku haysta caaisho una xirxiranta muddo dood dheer ah kadib iyo cabsi fara badan oo aan dareemay wuxuu igu qanciyey wax fudud oo dhammaanaya inay yihiin waxaa weeyaan shaydaan baana ii kasbay anigu kufsi baan sameeyey goobtii faldambiyeedkana waan ka tegey caaisho oo nool waxyaabaha igu qanciyey waxaa ka mid a in uu sii dayn doono markay hawshu dhammaato wixii intaa ka dambeeyana wixii aan mudano iyo se wax noqdaan la arki doono muddo saacada ah kadib goor gabalkii uu dhacay wuxuu ii sheegay in ay ka fursan weyday maadaama uu anigii iga da'weyn yahay in badan inay ka fursan weyday inuu sharaftiisa ilaaliyo inaan ka dhalinyaraysanahay haddii berri waxaa dhacaan in anigu aan ka soo kaban karo xagga da'da ama waxaa weeyaan xagga sharaftaba isagu wuxuu yidhi waan kaa da'weynahay haddii arrintaas ay soo bixi lahayd dhibka ugu weyn iyo sharaf darrada ugu weyn anugu igu dhici lahaa kufsiga gabadha dabadeed go-aanka weyn oo aan qaatay baa wuxuu yahay markii aad iga tagtay buu yidhi inaan dila caaisho anoo keligeeya gurigiisaan uga tegay mudana guddoomiye aniga iyo isaga iyo waxaan ahay nin eedaysanaa oo aan hadda goobta fadhin hala fariisto dhaqdhaqaaq ma jiro ninka wixii xaalada amniga ciidamada ammaanka u xil saaran abukaata xabiib fariiso adood maxkamadda aadan maxamuud cabdille may si fiican ninkaa dhalinyarada ahaa raas ahaan iyo qabiil ahaan baan wadaagnaa dadkana waan isugu badinaayo dugsigii saraan wada qaadanay waxbarashada gaalkacyuuna degan yahay waana reer gaalkacyood waa kaa waxaa weeyaan cabdishakuur waa yaqaan saddexdii naas labadii naas iyo cabdishakuur saddexdii naas way cidda dembiga gashay mudana guddoomiye waxaa weeyaan aadan da-aadda aniga hal sanaan ka weynahay ama 2 sano wax noocaasa markii aan qiyaaso markii aan qiyaaso da'diisa ma garatay walaalkay meesha waxaa keenay baa waxay tahay inaan isku DNA noqonnay iyo inaan isku hidaraac noqonnay taasna waxaan ku mari karaa waxaa weeyaan shareecada iyo kitaabka anoo ku dhaaranay xaqiiqada aniga iyo aadan kufsigaan ka qayb qaadanay waan maya isku mar baan ka baxnay guriga aniga aadan isku xilli baan ka baxnay markii aan kufsiga geysanay cabdishakuur wuxuu nagula taliyey waxaana inay kufsi keliya noqon doonaan waxaa weeyaan xaaladdu markay kala degtana uu gabadha sii dayn doono sidaasaan go-aan ku gaarnay waan ka tagnay anigu magaaladan aaday aadan magaaladan isku sii raacnay waa kala tagnay hal mar hal mar in badan buu nooga sii horreeyey gurigiisay taalla gabadha yes علاقات انتهى لك بين حي بريها المسافة لك لك سجران ما يقدم بيا نوعا خلا هربش wax dambiyo aan wada galnay ma jiro kufsi hore aan anigu galay ma jiro kufsi ama dambi weligay laamaha aniga inay taqaan saldhigna kuma baryin magaceeduna oobi ma gelin cabdishakuur laba guriyo iska soo horjeedaan deganahay dariiqun baa noo dhaxeeya qiyaastii ku qiyaasan 12 mitir 12 talaabo waxa weeyaan waxaan kaloo cadaynayaa walaalkay inuu dambiga berri ka yahay anoon la igu khasbin anoon wax kale la ii sheegin midna xaqiiqadan sheegaya dhalinyaradi qaarankay duuxii dalkaygiyo u mucdaya xooggii aan ku gaaranaynay dhalinyaradi qaarankay duuxii dalkeeniyo u mucdaya xooggii aan ku gaaranaynay
fayuulay dhegaysta dhimmadaya haweenku ee ka dhowra kuwa dhaqanka baaslo ku dhex nool dadweynaha waa inaan ka dhiicinaa inta dhimir fayuulay dhegaysta dhimmadaya haweenku ee ka dhowra kuwa dhaqanka baaslo ku dhex nool dadweynaha waa inaan ka dhiicinaa